بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan waan idin salaamaya dhalinyaro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Booqasho gaaban oo aan ku tegay laboratory-ga ugu weyn goobtan aan joogo ayaan markaa halkan idinka tusaya ila fiirsada qiimaha uu leeyahay iyo qalabka yaalla iyo shaqada ka socota. Si fiican ila fiirsada. Waa dhiirigelin aan dhalinyarada ku dhiirigelinayo si ay u bartaan qalabkan laboratory-ga soil asphalt concrete. shaqo aad u qaaliya oo loo baahan yahay wadamadeenu u baahan yihiin. kala socod fiiri bal qalabka yaalla, qalabkaas oo dhan insha Allah kolba saan fursad u helo ayaan idinku sharxi doonaa. ujeedaan qalabka yaalla si fiican la soco. ka socota yani ugu yaraan waxaa ka shaqeysa 30 qof baa ka shaqeysa ugu yaraan. nin walba hawl buu hayaa. midba qayb baa loo xil saarayaa, qaybtaa buu baadhaya. waxaa garab taagan injineero u takhasusay iyo garab taagan dhammaan qaar waa arday oo ka yimaada jaamacadaha private-ka ama ka yimaada jaamacadaha ka soo baxay dowladda ama technical ka soo baxay oo diraaso ku soo qaatay laakiin aan aqoon qalabkan si loo adeegsan lahaa. soo qalabka yaalla iyo baaritaanka ka socda. waxaas waa wada baaritaan idiin muuqda. qalabkii iyo baaritaan ka socda. waa farsamada ugu qaalisan laabka marka la yiraahdo. hawl kasta way fiican tahay laakiin waxa weeyaan waa farsamo qaali ah weeyaan oo ku baranayso yani waqtiyo gaaban. waxa kaliya lagaaga baahan yahay hawaaye ingiriiska inaad wax ka taqaano si yani alagal ugu yaraan aad u turjuman karto kelimad kastoo kaa soo horbaxda dictionary-ga u gali karto. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad calculator-ka yani ku xisaabin karto oo xisaabta si fiican u taqaano. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad computer-kana wax ka taqaano, waayo sheet-ka lala soo baxayo loo geynayo natiijada lagu soo saarayo wuxuu ka soo baxaya waa computer. waa ka dhan u fiirsan dhalinyarada ka shaqeynaya. saddexdaa shay baa ugu muhiimsan oo lagaaga baahan yahay. markaad nin walba uu haystaa computer waa la wada yaqaanaa, tacliin badan uma baahno. waxyaabaha looga baahan yahay saddexdaa shay. xataa ciddaan jaamacad ka soo bixin laabka hadduu ka soo baxo matalan waa ku shaqaysanaya. intaa hadduu yaqaano waa ku shaqaysanaya. baaritaanka ka socda
wax walba oo yaalla, laami ha ahaato, sfilti ha ahaato, ciida ha ahaato, dhagax ha ahaato, block ha ahaato, wax walba halkaasa lagu baadhaa. markaan kani waa laabka ugu weyn ee gobolka meeshaan joogo yaalla. gobol kastana wuu yaalla. midda kale sharikad kastana way haysataa intii khusaysa. laamiga ka shaqaysaa qaybtii khusaysay laamiga haysataa, oo laboratory u jooga, macallin baa u jooga. qaybta concrete ka shaqaysa sidoo kale macallin baa u jooga. qaybta ka shaqaysa laamiga macallin baa u jooga. maandiskaasa u jooga oo u shaqaynaya. subscribe dhaha, sharena dhaha, dhammaan dhalinyarada si u gaadho ay uga faa'iidaystaan. insha allah way faa'iidaysanayaan. hadafkeenu waxa weeyaan dhammaan inay dhalinyaradu faa'iidaystaan, soo saarno jiil oo aqoon leh u leh yacni qalabkan. la soco dacaayadiga ma aha aan laabkan u dacaayadeynaya, laakiin waa tusaale ama dhiirigelin aan idin dhiirigelinayo si aad idinku u barataan hawshan. aan la moodin in anigu dacaayad u sameynayo oo faa'iido nooma lahaba, dee wax kama iibsanayno, laakiin waa dhiirigelin u sameynayo dhalinyarada. aan u sameynayo dhalinyarada si ay qalabkan u bartaan. qaybtaan hayay waan soo geliyay duruus ugu yaraan 32 darsi baa ku jira channelka, waad fiirsan kartaa. qayb kalena way soo socotaa, kuwan hadda aad daawanaysaan dhammaan hadda badhkoodna waan soo dhigay, badhna way noo laaban yihiin. waa ka la soco, yani inaad aragti ka qaadataan baa muhiima. kuwa soo koraya way ka faa'iidaysanayaan, kuwii hore u joogay way ka faa'iidaysanayaan, jiilkeena soo koraya. marka insha allah kala soco channelka Engineer Axmed Maxamuud ku qoran tahay. waxaan ka codsanayaa dhammaan dhalinyarada shaqooyinka yaqaana, haddii electric tahay, hadday yani farsamo gacmeed hadday tahay, inay soo sameeyaan channel oo u faa'iideeyaan dhalinyarada si ay uga faa'iidaystaan yani mustaqbalkooda dambe. marka ha kala soo qayb galaan dhalinyarada yaqaana farsamooyinka gacanta. khayr bay u tahay iyagana. usarad yani cailadood badan bay yuu qofkii bartaay uu khayr u tahay oo faa'iido u tahay uu ka biilinaya. horumar baan rajeynaya insha allah, si nin walba u guntado oo u soo dhigo u yaqaano si looga faa'iidaysto. akhriya adduunku insha allah waa faa'iidaysanaa, idinkuna sii share gareeya si ay u gaadho. ay adiguna khayrka waad ku leedahay markaad sii share garayso. hadduu qof faa'iidaysto, qofka ajirkiisa iyo usradii uu u shaqeeyeyba waad insha allah waad helaysaa. subscribe sii dhaha, sharena dhaha. waa kaadi nin socdo, baadhitaan baa ka socda, qayb walba leh. maalin kasta saaba u shaqeeyaa. nimanka ka soo gelin qalin jabiya jaamacadaha, theory buu kusoo qaatay, aragti oo qalin iyo buug buu kusoo qortay, laakiin qalabkan aqoon fiican uma leh. taa idiin muuqata inaan idiin sharxay baan u malay inay duruustii hore ku jirto. maanta haddaad duruustii hore soo aragtay, kan haddaad aragto maanta darsiga kaa waan arkaad odhanaysa. marka waxa weeyaan hadda sharikaduhu
way ka badan yihiin yani haddaad adigu barato tiraado keligaa isku haleyn way kaa badan yihiin sharikad boqolaal sharikadood baa jira u baahan marka waxa weeyaan dhalinyaradu waxay noo bato ha ka faa'iidaystaan iyaguna ay soo dhanin keligaa un faa'iidaystay u faa'iideey dhammaanta walaalaha sharikad kasta oo private waxay u baahan tahay nin laabo u jooga marka waad ujeedaan qalabka meesha yaala shaqada ka socota anu faa'iideyno dhammaan channelka markaan fiirsaday cidda daawanaysa waxay iga muuqatay yani 25 jir ilaa 40 jir yaa iga muuqatay in cimrigoogu yahay marka waxa weeyaan aad loo qaatay 18 iyo 25 kuna waa ku jira laakiin waxa weeyaan waa yar waayo waxay muuqatay inay meesha dhalinyaro fiican ay meesha wax baranayaan jiilkii loo baahnaa 25 ilaa 40 jir hawshan uu baran karaa waxa ka socda ciidii ha noqoto waxay leedahay qayb waxbarasho sayni sheegay hore waa taa kuraasada taala sabuuradii waa taas halkana loogu tafaasiiriyaa oo loogu dhigaa jaamacad marka ka soo baxdo matalan jaamacad ka soo baxo geology ha noqoto civil engineering ha noqoto technical ha ka soo baxday noqoto qalin boobu ku soo qaatay laakiin aqoon uma leh marka tan halkana si fiican qalabkii oo gacanta kala shaqaysiinaya gacanta marka gacanta ka shaqayso waxa tahay nin special oo yaqaan gacantiina waxa qalabkii ka shaqaysiin kara aqoonna u soo loo ka soo qaatay jaamacadaha ama ka soo baxay technical marka qalab soo shaqeynaya waa idin muuqata raaligu insha Allah saan kolba fursad helo waa ni soo gudbinaya duruusta qalabkan aan aysan insha Allah meel kale ka raadin insha Allah waan dadaalaya ana sidii aad duruus soo dhan ni soo wadsiin lahaa si share gareeya hagaadho walaalihiin hagaadho laabka markaad joogto waxaad moodaa inaad suuq joogto laabkan oo kale markaad joogto inaad suuq joogtaad mooysaa buuqa ka socday iyo qabta ka socday iyo jugta ka socday nin walba uu shaqeynaya ka waxa yani aan kari waayay inaan soo wada koobo wixii oo dhan shaqadii oo kolbatay kabaradayda ku hagaagto man soo duubay laakiin yani waxa weeyaan xabad tafaasiil baan niga siin doonaa insha Allah صوت كده ويدقى حدين لكن هذا صوت كفر واحد نيجم وقت قبجع ذا كده عايز ماشي هو يعني والبحول بوهيا فقالوا وحيابا على جنب هنا وكان كل شيء جاي وراسه شيء جاي جريس جاي إنه حكي كي يقع نقفكو وإنه يقع إنه كل كرياتر كان سوي حسابته وسوسر وحساب بكو حساب واحد النتيجة تن كجر تن كله فتن كجر وحول أنت عم بكو صوب حساب ميزان كجر ميزان كان وجه ميزان كان كله فكان كانوا قريب كان حسابتهم بيكسوا بحساب والنتيجة رقمكم مركو سيداي هي وجود وفي عنتها رقمكم سيداي هنا ضعيف حسابها بيكسوا بحساب هكا باريتان كسودا نوع والبا وكسودا باريتان كستو كسودا marka intay kamarada idul gaadhay uma soo sawiray hadda marka waa inta wax laga baahan yahay computerkana waa in wax ka taqaano natiijadu nihaayadu waxay ka soo baxaysaa waa maxay soo shaqeynaya qofkii arqaamta uu soo qoraya uu soo miisaamaya yani waxa weeye ingiriiska waa in wax ka yaqaano ku mid labaad waa in ka yaqaano xisaabta qoraalkeeda si fiican u qoro qoraalkeeda iyo xisaabteeda ka jar ku dhufatan ku dhufay calculator-ka waa inuu si fiican u yaqaano takale waa inuu computer-ka oo nihaayada soo saarata natiijada ugu dambaysa ka soo baxayso waa inuu yaqaano laabka laftiisa hadda 4 ilaa 5 ba ka shaqeeya computer nin walba natiijada rag ba soo sameeyay warqadi waa kan qalin buu ku soo qoraya
nibad baa loo keenaya kaasaa markaa natiijadii nihayadda soo saaray ku kaloo computerka jooga loo geynaya waa nataan soo shaqeeyay natiijada nihayadda isagaa soo saaray sheet baa loo sameynayaa haddaad u fiirsato wiilkaa yar wuxuu u sharxayaa nin ka mid a ardayda sida loogu dhufto ama loo shaqada u socoto waa la kala faa'iidaysanaya halkan waa dhamaanada loo faa'iideynayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan wadamadeennana ku yeelano laabo saas oo kala waaweyn oo dhalinyarada lagu siiyo practice yani camaliyan lagu siiyo yaan rajaynayna insha Allah inaan wadamadeena helo waxaa jira xataa laabab oo markay mashaariicdu socdo laabab private la keensadaa dad barkooda ay keensadaan gaadir baa uga shaqeeya dhalinyaro uga shaqeysa marka laabka private kana xataa waa la furtaa marka lacagta way keensadaan laab private marka waxa weeyaan waayo hawlahay baa ka badan oo shirkadii marka ay shaqeynayso consulti baa jira koonaya consultigaasi haddaad idinku lacagaysataan laab oo dhexdhexaad ah inoo geeyo anigu waxaan ahay consultigii idinkuna waxaad tii laabka shirkadiina markaa ku inoo dhexeeya hala keeno oo natiijada baara oo anna aan saxeexo saasna markaa contractka markay shirkadu qaadato laabka warqad aan soo marin haddana warqadii laabka ku jirin shirkadda dhan lacagteedii lama siinaysaa wala socdo يعني waxaa soo baxay lacagta soo baxay shirkadda marka nihayada la saxeexay waraaqo dhan baa la eegaya hadii la waraaqihii laabka ku jirin keen baa leeyahay marka waa muhiim bay aad u tahay oo dhaqaalaha shirkadda kaga xidhmay hadii aanu haysan laabkii aanu soo baaritaanka waraaqo shiidkii marka muxtabarka dhan baa inuu la socdo insha Allah walaalahay khayr bay dirajeenaya sheedaha oo sheed kaliya walaalihiin وكانيga lafteedu waan ka qayb galay waan ku jiray halkaas waa aniga marka insha Allah tan waa inoo sharxi doona share daha oo subscribe daha oo gaarsiiyo walaalihiin si uu u faa'iideystaan dhammaan waan salaamaya dhammaantiin waan salaamaya